الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إلهي بقى mahad iska leh kadib waxaan u mahad celinayaa walaalahayga ama saaxiibaday meeshaan degan oo aan booqashada ugu imid oo fadhigan quruxda badan inaan maantay ku wada hadallo oo mowduuc isku weydaaranno aan ku wada hadallay waxaan rabaa inaan idinkala hadlo bal mowduuca idiin soo dooray iyo sababta aan ku soo dooray waxaan kaloo rabaa inaan hadalka soo gaabiyo si aan su'aalo furan oo aan ku wada raaxaysanno isugu helno waxaa ii muuqatay intaanan aayadaha qur-aanka oo aan rabo walaalaha inay ila arkaan aanan gelinin soomaalida ama bulshadu annagu aan ka soo jeedno ee aan degaanka wadaagno ee ilaahay jaan dhulka ka mida uuna siiyey uu yidhi halkaa degow ku noolaada oo nala ka rabo meesha inaan waajibaadkeedii iyo horumarkeedii iyo wanaaggeedii aan ka soo baxno waa maxay sababaha kallifay dadkayagii aadanuhu markuu halkaa u socdo inay gadaal u socdaan maxaa tayadooda yareeyey maxaa hiddahooda hoos u dhigay maxaa dhib badanoo maanta haysta inuu weligood iska haysto ama sannado badan haysto ama ilaa hadda wadiiqadii ay uga bixi lahaayeen aysan muuqanin maxaa kallifay markaan su-aashaa isweydiinayo jaanib diiniya inaan uga jawaabaan rabaa siyaasadda ninkeedaa leh arrimaha bulshada ninkeedaa leh maadada anigu aan bartay waa kitaabka qur-aanka ah oo aan aaminsanahay diintii islaamku inay asaga keliya tahay maadadaas marka haddii lagu fiiriyo arrintaas waxaa ii soo baxaysa 3 qodob oo anigu aan is-iri waxay sabab u tahay in dadku dariiqa qumanaanshaha fududaystaan ay qallooca keliya ku socdaan soomaalidu waxay aaminsan tahay wax la yidhahdo khaatumo ninku wuxuu ku leeyahay ilaahay khaatumada ha noo suubiyo wuxuu leeyahay insha allah khaatumadeena khayr allah ka dhigo wax la yidhaahdo khaatumo bay soomaalidu aaminsan tahay khaatumo qur-aanka kuma qora kumana jirto qur-aankan waxaa ku jira maalintaad qaangaadhaa lagu xisaabinayaa afkaaga wax kastoo ka soo baxa iyo fal kastana waa lagaa qorayaa qiyaamana miisaan baa lagu saarayaa 2 account baa kuu furan oo xumaan iyo samaana xumaan iyo samaantaasna waa lagu miisaamayaa haddii wanaagaagu batana halkaa iyo khayr baad aadaysaa haddii xumaantaadu batana halkaa iyo ciqaab baad aadaysaa xasiilatu acmaal resulti ka soo baxay camallo aad qabatay intaad noolayd baa lagu xisaabayaabaa qoran haddii dadku marka ay qur-aanka dib u fiiriyaan waxaa arkaysaa khaatumadu inay ka mid tahay waxyaalaha qur-aanka uu ka cabiray yididiilada alla wuxuu yidhi laysa biamaaniyikum saa ismoodsiiseen idiin socon mayso walaa amaaniyi ahlalkitaab qolyihii idinka horreeyay yuhuud iyo nasaariya wax la midkaa say ismoodsiiyeen u socon mayso maxaa soconaya man yacmal suu'an yujza bih ninkii gaboodfal la yimaada abaalkeedu helaya waxaana la rabaa inaan noqonno dad faktis ku dhaqma inaad inta iska riyooto waxaad doonto kharibto xaaraan cunto ummadda baabi'iso dhiiggooda cabto aad tiraahdo khaatumada dambaa ii ficnaanaysa iyo markaan dhiman rabaan ashahaadanayaa kitaabkan qur-aankaa kuma taal waxaana aaminsanahay inay ka mid tahay asbaabaha sabab u noqday in qofka Soomaaliga uusan falkiisa iyo qowlkiisa ka fiirsane wuxuu raba intuu kharibo uu khaatumo isku halay arrinka labaad
waxaa jira oraahyo diini ah oo aan qur-aanka ku ool oo oranaya ereygaas hebel ah ama statementiga ama sentenceka hadduu afkaaga ugu dambeeyo markaad dhimanayso jannaa galaysa. taas waxay keentay qofku inuusan xisaabtan dhab ah rikoorkaaga maxaa gelaya. waddan baa hadda joogtaan, meeshaan joognaa waa Toronto, nidaam baa ka jira, constitution baa jira, ka warrama qofka dil iyo kufsi iyo dhac iyo boob rikoorka u gasho see buu noqonaya? soo qof aan sumcad fiican lahayn noqon mayo, soo qof noloshiisu ay hoosayso noqon mayo. sidaa inaad u xisaabtamto alla agtiisa rikoorka maxaa kuu gelaya. maxaa yeele alla wuxuu yidhi maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. oraah walbo bishimahaaga soo dhaafta mid diyaara oo waardiyaa baa qoraya. alla wuxuu yidhi faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala sharan yara. atam haddaa samaysa wanaagana meel buu ku yaallaa, atam xumaanana meel buu ku yaallaa. waa maalinta dadka inta la siiya buugaagti laga qoray mid ka mida uu leeyahay maa li hada alkitaab, what is this book? war buuggaan muxuu ahaa? laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiira. mid yar iyo mid weyn midna ma dhaafin, maalina xataa iljabiye waa ku taallaa. qof aan carabka u qalloociyo muxuu ahaa buuggaan? ilaahay wuxuu leeyahy wawajaduu maa camiluu xaadiran, waxba looguma darin. waxay shaqaysteen oo qoran baa loo keen oo ma la qoraya. nacam, aayad kalaa caddaynaysa innaa kunnaa nastansikh maa kuntum tacmaluun. annagu waa brintigraynayna waxaa samaynayseen, waa qorayna waxaa samaynayseen. adduunkana ciyaar umaynaan imaan. intaa marka laysku daro waxaa meesha ka baxaya qofka tuugaa, qofka daalimkaa, dadka ummadda xaqira, kan wadaniyaddu ay ka dhimatay, kan ciiddiisa guba. ciiddu waa hooyada, dhulka hooyadaa wey. hooyadii ninka gubay ninka ciiddiisa waa isku mid wey. ninka sidaa yeela inuu isku halleeya hadhow baan ashahaadanaya markaan sii dhimanayo oo aan diabetic noqdo, markaan dhiikar igu dhaco, markaan kansar laygu sheego, markaasaan tawxiid bilaabaya maaha. from now saacadda hadda aad taagantahay xil baa ku saaran. ilaahayna maalinta qiyaama wuxuu kuu keenayaa miisaankaagii. fa amaa man haqulat mawaasiinu, wanaagiisii oo la beegay ninkay badato, fa huwa fii ciishatin raadiya, nolol uu ku qanacsan yahay buu gelayaa, waa janne. wa amaa man khafat mawaasiinu, wanaagiisii ku hoos u dhaco xumaantiisu badatana, fa ummuhu haawiya, haawiya hooyo u ah. wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya. aayadaha cadcad baa ka yaal. meel aayad cad ay ka taal inaan anigu wax kale inta samaysto aan riyoodo waa wixii yuhuud laga diiday. kan saddexaadaan kusoo gabagabaynaya wuxuu yahay soo dhibaato ma aha walaalayaalow dadkii naga horreeyey wixii ay ku dhicina ka faa'iidaysan weyno. dad baa waxay moodeen magac keliya in lagu mutaysto wanaagga alle. waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan. janno geli maya nimaan yuhuud ahayn. oo maadaama aad yuhuud tahay baad janno helaysaa bimujarad ay yuhuud tahay. camalkaaga ay ka hadli maysid. may lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan. maanta waxaan taaganahay janno geli mayo nimaan muslin ahayn. oo ma magaca muslimnimadaad janno ku helaysaa? dad baa hortaa riyooday, adna waad riyoonaysaa. that's the real dream. waa riyo. dhabtu maxay tahay? dhabtu waxay tahay waxaad leedahay alle wuu ku abuurtay, cumri buu ku siiyey, arlada guudkeeduu ku keenay, wuxuu kuu tilmaamay laba wado, wahadaynaahu najdayn, wadda xun iyo wadda san. wuxuu ku siiyey baawar buuxa. haddeeraad kaniisadda aadi kartaa, haddeeraad masaajidka aadi kartaa, haddeeraad bulshada ka shaqayn kartaa, jidka qashinka aruurin kartaa, haddeeraad wasaq ku soo daadin kartaa. adaa iskale, optional baa tahay. baawar baa lagu siiyey. baawarkaasaa laguu ciqaabayaa, asagaana qiyaamo mudanaysa. ma noqonaysa arrintu qolada aan haybta aan sheegano ee islaam la dhaho bay janna meel u taallaa. qur-aanka ilaahay kuma taal.